Abaarta ayaa ah mid si weyn u saameysay inta badan dhulka Soomaalida, iyadoona ay sababtay in roobabkii deertu ay meesha ka baxday, diraacdiina ay noqotay mid daba dheeraatay. Halkan waa ceelka taariikhiga ah ee deegaanka Yeele ee gobolka Sool. Waa ceel ay u soo arooraan xoolo tiro badan, kuwaas oo ka kala yimid deegaano fog si ay biyo u helaan. Balse ceelkan ayaa hadda lahayn wax biyo ah marka laga reebo qodaal yar oo ay ku sameeyeen dadka deegaanka. Dadka deegaanka ayaa noo sheegay in ay tahay markii ugu horeysay oo ceelka biyuhu yaraadaan, taasina ay sababtay roobabkan oo xilliyadii u dambeysay aan diin. Maanta waxaan ku sugannahay degmada Yeele ee gobolka Sool. Halkan joognaa waa ceelka taariikhiga ee lagu magacaabo Yeele Kaaweyn. Sida ka muuqata ceelkani waa ceel muhiim ah oo ay ka cabaan geelal aad u tiro badan iyo xoolaha iyo dadka deegaankuba oo waliba ka kala yirmi meelo aad u tiro badan. Ceelka waxa ka jirta biyo yaraan, sidoo kalena ceelku wuu odmay. Yeele waxa loogu bixiyay waa magac taariikh weyn oo fog. ninkii ugu dambeeyay wuxuu yiri Yeele ninka iga weyn waa ceel naga dacweyn, laakiin anagu ilaa 7 sanadood baan inuu ku naxfiyay oo dul joogay. dadkana waa nala joogay oo ceelku biyo leeyahay. qod baanu rabnaa hadeer oo uu naga awdmay. itaalka yagiina uu ka batay, waanu ka baqnay oo inaanu biir ugu laanaanu ka baqnay. waxaan u baahanahay wax qabad. ceelkan soo jeetan waa ceel weyn, taariikhi weyn oo xoolo badan way joogaan. xoolahan ceelka ka cabaa deegaano inta leeb ka yimaadaan. deegaamo fara badan oo isku soo jeedo ilaa 15 deegaan oo ku dhow bay ka cabaan. xoolahoodu waa waqtiyada qaarkood waa nagu filay. maanta oo kale waa naga biyo yareeyaa. waxaan aad baa loogu batay. dad waxtar baanu ka rabnaa. maxaa markaa codsanaysaan ceelka hadda u baahan yahay ladiisa? waxaanu ka qabsanaynaa in loo qodo oo qofka nagala saaro. qofka waanu ka baqnay inaanu ku biiroonaanu ka baqnay in la ka qodo oo shay wal naga qodo baanu u baahanahay ka codsanaynaa. dhankayga waxay taagan oday Cabdilaahi wuxuu ka mid yahay dadka ariga u soo arooriyay ceelkan oo degmada Yeele ku yaala. bal ka waran ceelkan iyo xoolaha meesha keentay. xoolaha meesha ka keenay meel fog baan hadda ka keenay. xalay way soo guureeyeen. wixii kalena way soo socdaan. ceelkiina waa naga awdan yahay. waxaan u soo guureeyay ceelkii intaan la goosan aad ku orodido gaadhid. xoolihii kalena way soo socdaan. geelashii ceelka cabbi jiray xaggaas laasaha iyo waa kuwa ka muuqmuuqdo. ceelkii may imanin. wadanku waa naga waxaysan yahay oo cunadii baa naga waxaysan, biyihiina waa naga waxaysan yihiin. marka waxaan u cabanaynaa ilaah baan u cabanaynaa. ma laga yaabaa maadaama xoolo badan halkan ay joogaan ceelkiina si aragnay oo odin yahay xoolaha kale soo socda in biyo la'aan ku dhacdo kale halka iyaga meel qasab waa ku dhacaysaa baa xoolaha waa ku dhacaysaa. biyo la'aan baa ku dhacaysaa. xoolaha aan wali maqan hadda soo socda biyo la'aan baa ku dhacaysaa. marka xagee bay u aroorayaan arigahaas oo kale? inay caawiyo soo gulgal meel laba dama gaari. maxaa saacad bilaale injineer Buraale oo hadda booqasho ku maray Yeele. halka waxaan kor taaganahay ceelkii Yeele oo ah Yeele Kaaweyn. waa ceel taariikhi ah sida uu sheegay odaygii Cali Cabdi Cawl. laakiin ceelkii wax qabad weyn buu baahan yahay. biirtiisi waa soo uraysaa. odayaashana waan cabashadooda waan dhageysanay. laakiin waxna waa waxay tuuladu ama dadku qabsan karaan, waxna waa wax loo keeni karo. aan waxaan qabaa wax badan ciidan in laga guri karayo. wixii kale ee dhaqaale u baahan kullu hadda odayga waan cabashadiisa waan maqalay, waan gudbin doonaa. wixii ilaahay uga soo qaadana waa loo keeni doonaa. laakiin waa inay iyagu bilaabaan hawsha. qofku tuulo kasta waa inay isku xisaabtantaa oo waxay qabsan karayaan aysan ka sugin dibad. laakiin iyagu ama system ha noqoto ama xoog ha noqoto ama dhaqaale yar oo cashuur ha noqoto, waxay noqoto inay iska soo ururiyaan meelaba ma gaari karo. maxamed waxa uu geel ka soo arooriyay masaafo aad u fog si uu halkan geela uga waraabiyo, balse waxa uu la kulmay biyo yaraan iyadoona ay xoolo aad u badan ceelka dul hoganay. awrtan waxaan ka keenay meel fog. xalayna way soo guureeyeen. geelina hadeer biyo la'aan awgii uu ka tagay ceelka oo uu ka fogaaday. intaan hadeer waxaan u soo guuraysiinay waa geelali dhalay oo la reebay oo geeli gaadhi waayay. marka waxaan uga soo guuraysiinay intaan biyo xumo awgeed baan u soo guuraysiinay. hadeerna ceelku waa naga aasan yahay. annana xoog aan ku qodno oo tacab aan ku qodno waanu awoodaa waanu weynay. marka ilaahay baan uga cabanaynaa iyo beesha caalamkaan u cabanaynaa.
u qabtaan deegaana intee leg bay xoolahan iyo geelin ka yimaadeen maanta ceelka u soo deegaan fara badan waxa looga soo arooraa wix arweyn ka sokaysa gosha xaggan ka xigta ilaa iyo ceegaag goshu waa biyo laadahay ceegaag ilaa wix ceegaag ka sokeeya xaggan ilaa arweyn ka sokeeya xaggan ilaa oo ka sokeeya xaggan shululux wix xaggan hadhwanaa ka xiga intaaba waa looga soo arooraa deegaan fara badan baa looga soo marka maxaad u baahan tahay hadda ceelkan leed ka qabto ceelkan waxaan u baahannahay bal in naloo qodo waxaan haddeer waa waxa ceelka aasay waa un qof marka qofkaas doonaya awoodii lagaga soo saari lahaa oo lagu qodi lahaa marka dee kaalmeyn baan u baahannahay iyo wax ceelka noo qoda oo biyaha noo soo saara ceelkan deegaanka yeele ayaa ah mid muhiim u ah xoolo dhaqatada iyadoona ay xooluhu uga soo arooraan masaafo aad u fog si ay biyo halkan uga helaan mukhtaar cabdi jaamac wararka Hon Cable degmada yeele ee gobolka Sool.